madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa loo dhaariyay xilka madaxtinimada cusub ee dalkaasi Faransiiska toddobaad kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada dalkaasi ka dhacday. Waxa uu noqonayaa madaxweynihii 25aad ee soo mara taariikhda waddanka Faransiiska. Sidoo kale waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da yaraa ee soo mara waddanka Faransiiska. Maanta oo Axada oo bishu ay tahay 14 May 2017 ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay xilka madaxtinimada dalka Faransiiska kadib guushii uu ka gaaray haweeneydii la tartamaysay Marine Le Pen. waxaana uu uga adkaaday 66.10 oo helay Macron halka yeeshay Mrs Le Pen 33.90 boqolkiiba. Madaxweynaha anti-wadaaga ee dalka Faransiiska François Hollande ayaa isaga baxay doona aqalka looga aramiyo waddanka Faransiiska iyadoo shaqada aqalka Elysee-ga uu la wareegi doono madaxweyne Emmanuel Macron da'diisu ay tahay 39 jir. Madaxweynaha doornaa dalka Faransiiska waxa ku wehelinayay xaaskiisa markii loo dhaaranayay xilka cusub ee madaxweynenimada dalkaasi Faransiiska. madaxweynaha ayaa ballan qaaday inuu wanaajin doono xiriirka u dhaxeeya Faransiiska iyo Midowga Yurub oo ay ka wada hadli doonaan sidii ay uga shaqayn lahaayeen wixii dan u ah. Waxa la doortay madaxweynaha doornaa dalka Faransiiska 7 May. Maanta ay bishu tahay 14 May ayaa xilka madaxtinimada loo dhaariyay waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da yaraa ee soo mara taariikhda waddanka Faransiiska.